السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسر دوادا وركا هبينما حكتا عيارها قضبادا ugu waaweyn warkan waxaa kamid ah Frank Ribery oo tilmaamay in uu jecel yahay inuu ku biiro koox weyn oo ka tirsan qaaradda Yurub. kooxda Liverpool oo sheegtay inaysan xilligan danaynaynin ciyaaryahanka Lyon ee fikir lagu magacaabo. Atletico Madrid oo kooxda Real Madrid heshiiska la gaartay siday ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka qadka dhexe Marcos Llorente. daafaca kooxda Bayern Munich Hamles oo qarka u saaran inuu ku biiro kooxda Borussia Dortmund. qodobadaasi iyo waliba Copa America oo caawa Argentina iyo Colombia isku dhagan sida markaa uu noqon doono shax ciyaareedkooda ayaa warkan idinkugu soo gudbin doonaa. haddaad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar. aynu ku horeyno ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyo xulka qaranka France ninka lagu magacaabo Frank Ribery ayaa waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ku biiro koox weyn oo ka tirsan qaaradda Yurub. 36 jirkan ayaa waxa uu markaa macsalaamay kooxda kubadda cagta Bayern Munich isagoo markaa heshiiskiisana uu dhamaaday. Frank Ribery oo ku biiray 2007 kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa waxa uu markaasi u dhaliyay goolal gaaraya 124 gool. ciyaaryahankan reer France ayaa waxaa la sheegay in uu markaa jeclaan lahaa in uu ku biiro koox weyn oo qaaradda Yurub. waxa uu tilmaamay mar warbaahinta dalkaasi Jarmalka qaarkood la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in weli khibradiisu ay wanaagsan tahay oo isku kalsoon yahay oo 2 sano iyo ka badan uu si ciyaari karo. kooxda kubadda cagta Liverpool waxay sheegtay in ciyaaryahanka reer France iyo kooxda kubadda cagta Lyon Nabil Fekir aysan xilligan wax heshiis aysan la gaarin. warar ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waxay sheegayeen in kooxda Liverpool ay heshiis la gaartay ciyaaryahanka kooxda Lyon Fekir. Liverpool ayaa sanadkii hore la soo dhaafay si weyn ninkan u raadinaysay balse xilligan Jurgen Klopp ayaa waxa uu tilmaamay macalinka kooxda Liverpool in ninka Fekir heshiis aysan la gaarin ayna u baahneen xilligan. sanadkan waxa uu tilmaamay Jurgen Klopp in kooxda Liverpool wax ciyaartoy aanan la soo wareegi doonin. wararka ka imaanaya dalkaasi Jarmalkan waxay sheegayaan Mats Hummels ninka la yiraahdo oo kooxda kubadda cagta Bayern daafac ugu ciyaaray xulka qaranka Jarmalka ayaa waxa la sheegay in heshiis 3 sano markaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. ninkan ayaa waxa la sheegay in heshiiskiisu uu noqday mid markaa lagu tilmaamay shock move oo markaa heshiis la yaab leh oo markaa naxdin badan oo aanan la filaynin oo markaa ciyaaryahankan kooxda kubadda cagta Borussia ugu biirayo. laakiin ilaa imika lama cadeynin in si sax markaa heshiiska ula gaaray iyo in kale, laakiin wararka ayaa waxay tilmaamayaan in Borussia ciyaaryahankan ay dib ula soo wareegi doonto. 3 sano ayuu waxa uu ku sugnaa garoonka kooxda kubadda cagta Bayern Munich. kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waxay 40 milyan ku raadinaysaa ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda kubadda cagta Real Madrid Marcos Llorente lagu magacaabo. ciyaaryahankan da'da yar ee reer Spain ayaa waxa uu sanboos joogta ka haysan kooxda kubadda cagta Real Madrid waqtiyadii la soo dhaafeen heshiisyo waaweyn ay kooxda sameeysay waxaana laga warqabaa inuu boos joogta ka sii heli doono xilli ciyaareedka soo socda. laakiin macallin Simeone oo macallinka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ciyaaryahankan si weyn u raadinaya. 24 sano jirkan ayaa laga yaabaa in xilli ciyaareedkan ay soo socda oo bilaaban doono markay soo ilaadaan koobabka waaweyn ee xulalka qaaradda Yurub, Afrika iyo America markay soo ilaadaan markaa ka ciyaari doono kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. ugu dambeyntiina caawa ayaa waxa la ciyaari doona Copa America. waxa is arki doona ilaa 2 kulan ayaa dhici doona waxaana markaa ay wada kulmi doonaan Venezuela iyo Peru ayaa wada ciyaari doona marka saacada geeska Afrikada bari ay tahay 4 saac habeenimo. dhinaca kale Argentina iyo Colombia 7 saac habeenimo ayaa saacada geeska Afrikada bari markaa ay tahay marka ay wada ciyaari doonaan. waxa macquul ah shaxaha ay markaa ku soo kala gali karaan xulka qaranka haddii aynu ku hormarno dalkaasi Argentina waxaa macquul ah inay ku soo wada bilowdaan Franco Armenia ninka la yiraahdo Nicolas Taglivo ninka la yiraahdo Renato Saravia iyo German Barella Nicolas Otamendi iyo sidoo kale Daniel Brez Leo Messi Angel Di Maria ninka lagu magacaabo Guido Rodriguez iyo sidoo kale ciyaaryahanka Casillo lagu magacaabo Sergio Aguero. dhinaca kalena xulka qaranka Colombia David Ospina Santo Arias William Tesila Yerry Mina iyo ciyaaryahan Sanchez William Barros iyo sidoo kale Cardona Juan Guadrado Radamel Falcao James Rodriguez
iyo Lewis Monell ninka la yiraahdo